وحصاك الصبح نمدي هور لoo dareeray salaada ciid al-fidriga oo ay shacabweynaha ku dhaqan magaalada madaxda gobolka cagaaran ee Gabiley iskugu soo baxaan barxadda weyne Masallaa oo magaaladaasi waxaana halkaasi shacabka kula tukaday mas'uuliyiin tiro badan oo ka socday xukuumadda maamulka heer gobol iyo heer degmo xildhibaanada golaha deegaanka waxaana dhammaan hadaladoodii ka mid ahaa inta walaalayaal marka laga yimaado Ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiisanayna inuu inagu arsaaqo oo aqligeena iyo maskaxdeena bageliyo qodbadii qiimaha badnayd iyo wacdigii culimada kala duwan ay noo jeediyeen oo inuu xasiliyo oo inuu weydiisanana Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaynu halka ku soo gaarnay inuu kaga duwanahay dalal badan oo jaarkeena inuu Ilaahay noo xoojiyo iyo shacabka oo inaga mahadcelinayna Ilaahay ka abaal mariyo inta kalena inay wax ku darsadaan mubaarak kullu caam wa antum bikhair Ilaahay ayaa mahad iska leh inagu soo simay maanta inaynu soo socono soddonkii Ramadaan dabadeedna aynu ku ciidno caafimaad qab Ilaahay ayaa mahad iska leh waana uga mahadnaqaynaa subhanahu wa ta'ala aniga ka faa'iideysanaya munaasabada ciid al-fidri waxaan jecelahay halkan inaan salaan uga diro dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto marlabaadka ummadda reer Somaliland ayaan iyana u dirayaa salaan waxaan kaloo halkan salaan uga dirayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo Ilaahay aan uga barayo cimriga iyo camalka uu Ilaahay u barakeeyo waxaan kaloo halkan uga dirayaa salaan golayaasha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland wakiilada goobtida iyo dhammaan ummadda reer Gabiley ee halkan ku sugan waraysa isaga ayaa runtii nimcadaas iyo nabadgelyadaas iyo barwaaqada aynu ku jirno aan ugu mahadnaqaynaa isugu keenay wanaaggan iyo sharaftan iyo maamuuskan iyo qiimaha iyo qiyaam intaba inaynu isku hambaliyayno oo inuu Ilaahay bisheeda nabad qab iyo barwaaqo inuu gaarsiiyo ayaanu Ilaahay ka baryaynaa sidaad ogtihiinba labada ciidood ciidda ciid al-fidriga iyo ciid al-adha labaduba waxay ka dambeeyaan sidaynu salaanka bacdi waxaan hambaliyo u dirayaa munaasabadan ciidda darteed ciid al-fidriga dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan shacabka Somaliland ayaan hambaliyo u dirayaa muslimiin iyo dhammaan muslimiinta adduunka meel kasta ay joogto ayaan halkan uga dirayaa farxadda munaasabada waxa kale oo halkan uga dirayaa munaasabada farxadeeda walaalayaal waa munaasabad qaali ah waxaynu joognaa garoonkii weynaa ee Gabiley ilaahay uu Gabiley noo barakee ilaahay uu gobolka Gabiley noo barakee ilaahay uu Somaliland oo dhan noo barakee ilaahay dalkayaga amni iyo istiqraar noo sii ilaahay amniga aanu haysanno noo sii siyaadi ilaahay wanaagga aanu haysanno noo sii siyaadi ummadda islaamka ee maanta oo kale ciidda dhiban ee wadamadoodii ku dhibanna ilaahay dhibaatada ka saar iyagana ilaahay amni iyo istiqraar sii ilaahay xilli aanu soo maray oo kale ku jiraan ilaahay oo ka saar ummadda islaamku meel wada joogto ilaahay dhibaatada ka saar ilaahay wanaag iyo khayr sii ya rabbul caalamiin walaalayaal nolosha amniga ugu qaalisan ilaahay amnigaan haysanaa inoo siyaadiyo qof walba meesha uu dib ka tirsanaya ilaahay dibtaa ka saaro waxaynu walaalayaal isku taagaynaa soo wax badan culimada ayna tiri oo aadayna wacday kalimaad kooban oo nolosheenna adduunyada iyo aakhirada taabanaya haddii kelmadda lagu leeyahay ay degta dhaafi weydo oo qalbiga u tegi weydo qiimo male in badan baa wax la isku sheegaa waxaa la isku sheegaa hadduu noloshaada wax ka bedeli waayo qiimo male ilaahay waxaynu ka baryaynaa in ilaahay naga dhigo الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون كل مركز ذكر إلهي يقولك إلهي يقرآنك إلهي لغو أخره وعبد الله داير تلفزيون كعالمي Somali Channel